بسم الله الحمد لله أولادنا ديجينا يدي عن كينو واهب رب سبحانه وتعالى إنسي لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور رب سبحانه وتعالى إسجا يا عدو دونو كما نيستا oo galad iyo deeq u siiya dumar isaga ayaana ciidu doono ku marnaysta oo siiya wiilal awlaadeenu waa nicmad inooga timiday xagga rabbi subxaanahu wa ta'ala oo loogu talagalay in ay noo qurxiyaan nolosheena adduunyo almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunya maalka iyo awlaaduba adduunyada nolosheeda waxay u yihiin qurux sida la ajligeed walaalayaal waxa loo baahan yahay oo ay tahay mas'uuliyad ina saaran inaynu ilaalino tarbiyada awlaadeena in aynu ka warhayno oo aynu waqti gelino sidii aynu ubadkeena ugu tarbiyadayn lahayn tarbiyad wanaagsan si ay noo anfacaan inaga iyo dadka مسلمين تأحدمانتود كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه هي مد كستو إذن كمد أهي ومسؤول وهرجوغي وانا لو يدين دون أمانة قيامة مسؤولية داس وهي ولا ليال وحآذي آذو مهمة إنينو إلالينو تربية أولادين ومهم إنaynu ka warhayno siday rabbi subxaanahu wa ta'ala ula tacaamuli lahaayeen in aynu barno waa muhiim in aynu barno awlaadeena sida ay rabbi subxaanahu wa ta'ala ugu cibaadeysan lahaayeen rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waa kiilaha wal awlaadiina amra oo fara inay tukadaan salaada oo ay ilaaliyaan iyaga oo jira 7 jir haddii ay ka tagaan 10 jirkoodana ku garaaca oo ku edbiya walaalayaal waa muhiim in aynu barno awlaadeena sidii ay tacliin noloshooda adduunyo iyo midooda aakhiraba anfacdo u baran lahaayeen ka warhay awlaadaada iskoolka darsi nooceeya baa lagu siiyaa marka ay xaafadda kula yimaadaan waa inaad mutaabacayso oo ka warhayso waxbarashadii ay dugsiga kala yimaadeen ma tahay mid caqiidadooda dhaawacaysa mise maahine waa mid anfacaysa madrasadaha iyo goob kasta oo waxbarasho wax lagu barto waa muhiim walaal inaad ka warhayso awlaadaadu waxa ay ku qaataan si aad u ogaato wadada iyo manhajka ay awlaadaadu raacayaan waa muhiim in aad barto awlaadaada tacaamul maca naas tacaamul maca al-aakhariin sidii ay ula maaragtay dhaqmi lahaayeen dadka kale waa inaad barto awlaadaada in uu ka yari ka weyn ixtiraamo ka weynina ka yar u naxariisto walaalayaal waa mas'uuliyad ina saaran inaynu ilaalino tarbiyada awlaadeena sidii ayna caaq inoogu noqon lahayn hadhow toole waa inaynaan inagu hadda caaq u noqon waayo sida ay ubadkuba waalidka caaq ugu noqdaan ayuu mararka qaarkood dhaqanka uu waalidku kula dhaqmayo ubadkiisuna ay iyaguna ku noqonayaan caaq haddaba imika tarbiyadee oo imika tarbiyadooda wanaaji si hadhow toole aad ula kulanto iyaga oo ku anfaca oo ku mahadnaqa si rabbi subxaanahu wa ta'ala su'aasha maalinta qiyaame laga weydiin doona awlaadaada ay kuugu noqoto mid fudud